Happy iyo Habboon waa laba hablood oo walaala ah isla markaana mataana oo ku nool magaalada Hargeysa. Muuqaal ahaan waa isku mid oo way isku eeg yihiin, taasina waxay sababtay in mararka qaar ay xataa kala saari kari waayaan bulshada ay la nool yihiin. da ahaan waa 17 sano jir, isu eekaanshahoodu waxa uu gaaray heer ay xataa imtixaanaadka isu galaan marka mid ka mid ay xanuunsato oo ay ismatalaan. waxaanay noo sheegeen in iyagu isku fasal ahaa xagga waxbarashada la kala wareejiyey oo midba galaas gaara la geeyey kadib markii isu eekaanshahoodu uu sababay khaladaad badan. والله دور كرت هو إذا وابجدوا خلد يدا أنا إذا هبوني تري هبيه sida markii dambana yeegtay yaabtay wabad soo eekaateema waxa dhacdo kale maalin beenan baadarna waxa ka qaadayaan maadaama habitaanaan haboonahay habbi moodase inantii halkii bay soo yaralaayeen ku tirnaa alaabtan ku dhibtaysi neen xiliban ka qaaday wallahi iyadun bay moodasaan baa kala saaro markii dambe ku dhaanay ay heetii wax ka qaadan aan waxa la idoo garanay waan ka yarin dhawaaweynaa aan ka yarin farwaaweynaa in tayda yarba tamataantida marsatay qalin halka maalmo dhawina gacan baa loo xiro gacantii magwe ka baqan ay isa saarta gacan inuu kala garanay Allah xudayada markiina kala saar waayay happy ma daragtay ay maamo marsel ka qarin maadaama soo eegnay ama markay qoshasho ama markay hadasho sidana noo kala gorto ay ka qarin loo dumariya soo eekaasha ayadan idii happy waxa dhacday maalmo kamida gutaan wax ka qaadanayay u tagtay waxa soo qaadatay gutaanka maalmo ka soo wareegay miduu alaabtiisa inta ninkiisa kan ku alaabtaan ka qaatay alaabtiisa sida ahay warwad waalana sabab ku riyaanida ma yahay ida wallahi hadayda qaataysi manoo taagan bad difirasa war wallahi ma iiba ku riya ka qaadanano wallahi billahi talay wad taaysi miduu manoo arkay xoolaydii ku dhaaranaysa ha wallahi la kan kuma istanan tii ay ka qaadeen anida haydina ta kala hayb maadaama iminka iyadu qadaysay baan maqanahay aan maqanahay iyadu tadana qadashay qadada ku laba noqotay cunteeda ay tiraadahay baan aanin bay yara xanuunsatay xanuun leedahay balabaas baa ku dhacday salaamay dhiganaysan nuurdin baan dhiganayay bartaamka ma ka baxo iskuulka baan tagay imtixaankii waan soo galay waxbarashadii waan soo dhigtay wax shaki mas'aalada shaki leedahay bimaatan wad Habboon ma jirin والله امتحانكي soo galay habla ilaa sanad la saxaabteedii waan la hadlay waan ka soo baxay iskuulka 12 markay gaadheen si loo kala garto Happy iyo Habboon hooyada dhashay oo lagu magacaabo Hoodan Ibrahim Cabdi waxay noo sheegtay markii ay kala saari weyday yaraantoodii ay go'aansatay mid kamid ah ilka haddaba rumariso sidoo kale waxay ka warbixisay hooyadani waxyaabihii ay kala kulmi jirtay yaraantoodii ka yaryaraayeen ay dhasheen aad bay iskugu eekaayeen de tani ma ka dhiga ma heeta kalaan hadana soo qaadi jiray iyadun baan hadana aan suurnay mar dambe la yoornay waa tii kale tanaad wadataad wax siinaysa dabeet heer waxaan gaadhay inaan kala calaamasado oo wax ku kala xiro dabeeto saasay igu suurta gashay inay aan markii aan kala calaamadiyay inay kala socmaan nabadii hablood markii waa weynaadana ma sha Allah dawadiga arkay garabkayga fadhiyaan saasi iskugu eegihiin aadna way iskugu eegihiin deemka hadii markay mi joogto qofka aan la barande wuxuu ornay waa tii kale ma aha tanimka tan soo arkay meenahay may waayadii qofku waa la murmasa qofkan garnay wuxuu ornay waa tii aan imika arkayay anna dabeet waxaan ornayaa mayatan waa hiblaayo tan waa hibilde way dhashay baan oo fahmaya inaan waxa laga yaabaa inaan ku isku khaldamo oo tanimka wuxuu dhibay hadana aan ku raado naho hiblaayo mise waaba tii ka kale doonayaan iraado waa waa laba ilaahay de amurtiisku eekaysi oo aadna isku eeg wadiga adigu weendhaa ku arkay imika matalan oo kale tan markay cadhooto ta kale markay la cadhoon jirto waa waa dabiicada imitaanu leeyihiin way silaashadaan gaar ahaan way wada socdaan dabta adigii markay hooyadii gurigii joogtaan baad mashquulsantay way mashquul badan tahay waxa soo raasatan wuxuu dhiibanba wuxuu sheeg tii kale ba ku ag taagmay dawladda soo horta hiblaayiga ta kale doonay adiga ma aha inay maalmaha kamida ay maqnayd dabeeto macalinkii baa ku ri Habboon soo kac Happy baa u kacday Happy booski buuxisay lama kala garanay markay yaraan aad bay wali isku weekaay imika markay weynaadeen bay kala duwanaayeen markay yaryaraayeen isku darbi xidhan jireen isku dhisayn aad bay isku weekaayeen
markay yar koreenay dee gashaantima noqdeen dadkii waa heblaaye ku bateen deeta mid baan damacnay inaan dabarkaan mariyo waa taa marsan imika. Shaafici Shaaciye, Bulsho TV, magaalada Hargeysa. hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland. dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyey in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helayaa adeegga e-dahab ee moobilkiisa gacanta. waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dacaladeeda. dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.